السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتها بوليد لهان تيمبا داوديال halkan aan taaganahay waa caasimada wadanka Indonesia. waxaan idin soo tabinaynaa banaanbax ay soo qabanqaabiyeen jaaliyada qaxootiga ee ku nool wadanka Indonesia, kuwaas oo isugu jira wadamo fara badan. wadamadaas oo ay ka mid yihiin wadanka Afghanistan, Iraq, Iran, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Sudan iyo dadka Soomaalida. balse waxa weheliyay dad yow ka yimid dalkaas Ethiopia waxay ka cabanayaan caafimaad, waxbarasho iyo shaqo la'aan iyo dib u dejinta oo ku raagtay muddooyin fara badan oo ay ku noolaayeen wadanka Indonesia, gaar ahaan caasimada Jakarta. qaxootigan ayaana waxa ay ku doodayaan inay wadanka iyo Indonesia joogeen muddo dheer. qaarkood waxa ay noo sheegeen inay ku nool yihiin 7 ilaa 8 sano, qaarkoodna 9 sanoba. banaanbaxan ayaana ku soo aadaya xilli dawladda Indonesia ay ku dhawaaqday in wax loo qabto qaxootigan ku nool wadankeeda. balse qaxootigan ku nool wadankeeda mar aan wax ka weydiinay dawladda wadanka Indonesia mid meesha iskugu soo baxay ayay noo sheegeen in dhibaato badan ay ku qabaan wadanka, ayna jeclaan lahaayeen in dib u dejin ay ka helaan wadamada deeqaha bixiya sidii ay noloshooda wax uga tari lahaayeen ama ay wax u qabsan lahaayeen. I come first. I'm first. They should be second. That's all. Clear? The second thing. When they say that why only family or they're chanting for singles, so kindly, I told you this before. On the 4th day, first day, second day, third day, there was no family at all. No family at all. Only singles. That's why we have been chanting this. Why only family? Justice for singles and blah blah blah. So kindly don't mind this. If we are saying this, you guys have to understand, please. We will stand for Asmat, please kindly stop it. Guys, we have to be very patient with each other. We have to be very patient. Hey, guys, please. Hey,